Ethiopia sida ay ku eedeeyeen mas'uuliyiinta dawlad goboleedka ama maamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia. wasiirka amniga ee Galmudug Cismaan Ciise Taardhuleed oo BBC u ramay isagoo jooga magaalada Cadaado ayaa sheegay in booliiska dhanka Ethiopia ay gudaha Soomaaliya dad rayd ah waxyeelooyin ugu geysteen. Taardhuleed waxa uu ramay wariyahayga Cabdinuur oo bal weydiiyay sida uu xaalku yahay goobihii shalay lagu diriray. waxaan rabaa ku sheego horta meesha xalaad kama jirin qabaayil iyo dad qabaayil oo diray midkood kama jirin waxa ka dhacay shalay deegaanka madaxweynaha iyo balcad oo ah xididka Soomaaliya dad deegaan ah oo shacaba oo degan in ay soo weerareen ciidamada iyo booliis ee dhibaato badan u geysteen kadibna dadkii baraka iyo uu ku dhacay asariir kadibna aan maqlaynay dadkii sidaas inay dana idaacadaha marsiyeen warar aan isleenahay xaqiiqadii Soomaalnimada iyo bilaadanimada midkood kuma habboona anaga waxaan maqlaynay dagaalkaasi bishan waxa maantana wali dhibaatooyin ay nimankaas ka jeesanayaan deegaanadaas ayaa jiro aqalad burayaan ma waxaad leedahay Cusmaan dagaal beeleed kama jirin miyaad leedahay aaga u dhaxeeya dhabad iyo Galinsoor walaal horta waxaan rabaa ku caddeeyo dadka Soomaalida ahi oo walaalaha wada deegaanay muddo dheer ba waxba iska jira laakiin calaad beeleed maanta ka jira deegaanadaas ama shalay ka jiray oo annaga ka galmudug aan ognahay ama ka jiray ma jiraan maga kuwa idin ogeyn ma jiraan marka oo beelaha dhex maray ma jiraan waxa maanta dhacday shalay kula oo halkaas ka dhacay haba yaraatee ma jiraan arrinta shalay dhacday xaqiiqi aad iyo aad ugu xunahay waan ka tacsiyeynaa dadka u dhashay Soomaaliya arrinta shalay dhacday marka iyada bal noo fasir seebay u dhacday waxaa jirtay meesha xuduudka Soomaaliya iyo Itoobiya in muddo badan ka socotay xoogaa dhibaatooyin ka jireen dadkan waa la soo raray deegaankaas waa laga soo raray waa la soo barakaciyey way ka soo guuriyeen meeshaas waxay soo galeen gudihii Soomaaliya waxay yimideen tuulooyinka aan kuu sheegayo waxaa shalay looga daba yimid tuulooyinkaas oo dee dowlad goboleedka Galmudug xuduudiisa ilokiisa ah halkaas ayaana dadka saafka lagu laayay laguna barakaciyey waxaa weeye gudahoodii lagu guba ma garatay marka dagaal beeleed ma jirin oo qabaa'ilka reer galguduuda dhex maray oo markii dambena Ethiopia iyo dhinaca xuduudda u gudbay tuulooyinkaas walaalow shalay iyo maalmahan haddaan ku sheegayo wax dagaal beeleed ah oo meeshaas ka dhacay ma jiraan dhibaatadan waxaa geystay waa ciidamada deegaanka ee booliiska shalayto markii aan BBC-du ay wareysatay saraakiisha dawladda deegaanka Ethiopia waxa ay sheegeen in kooxo maleeshiyada oo galmudug ka socda iyo shabaab oo wada jira ay dhinaca Ethiopia u soo gudbeen oo ay dad shiciba ay dhibaateeyeen goormaad wax isku darsateen shabaab waa ma santahay waxaana waa la yaabnay qof mas'uuliyad sheeganaya maanta no inuu sidaa u hadlana xaqiiqo oo kalanahay waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dowladda galmudug iyo shabaab waxa ka dhexeeya Soomaaliyana waa ogtahay caalamka waa ogyahay Ethiopia waa ogtahay waxaan filaynaa warkaas war suuqda maahan war gadmayana maahan war ninkaasi wax ku helayana maahan shabaab xilliyadii u dambeysay waxayna dhex maraad ogtihiin dhibaatadii ay deegaanadan ku hayeen dadkii kala dagaalamaanahay dadkii muddo 7 sano 8 sano hortaagnaayanahay waxaasi dee maahan wax gadmaya laakiin inta dee dad shacaba la laayo xooloodii la dhaco oo gudahoodii la gubo oo gaadiidkoodii la dhaco in haddana sidaas loo duceedaa waxaan Soomaalinimada iyo derisnimada midna ka tusay Cusmaan sarkaalkaas aan wareysanay waxa uu sheegay inay dhowr jeer idin kala xiriireen arrintan oo wax xala dhinacina uu ka imaan waayay walaa wanaga inagu waxa yiraahdaa dawladda oo nala tumeeyay ma jirto dadka deegaanka ayay dhowr mar fateen dadka deegaankana waxay u sheegeen meesha inay ka guuraan way ka soo guureen ujeedkiina raba laga haado cidii rabtaa aad ka dhamayso ma sii raacayo annagu ay jiraan dee nooca diifad waxa lagu hayaa jitanagu ma sii raacina sii raaca marabo markii ka soo guureen meeshii ay joogeen oo ku badbaadi waayeenna waxaa looga daba yimid guryahoodii shalaa lagu gubaaday waxaa lagu dilay 14 qof oo shacaba waxaa lagu dhaawacay soobay kow kale waxaa lagu qaatay gaadiid sidaas iyadoo dadkii sidaa loo geystay ayaa haddana waxaa banaanka la marsiiyey midiya la marsiiyey ay galmudug shabaab tahay ayagona weer soo qaatay waxaan rabnaa mas-uuliyiinta deegaanka iyo dowladda Itoobiya intaba arrintaasi inay talaaqad ka qaadaan arrintaasna baartaan daba lagu sameeyo ninkaas hadlay warka ku hadlana iyo meesha dhibaato ka dhacdana intaba ka lagu sameeyo warkaasna inoo garan baadilaayo
واتاي اسمع ugu dambeyntii bal ka waran idinku maamul ahaan maxaad ka qabateen colaadan beelaha iyo dadkan taro kale ay ka mid tahay ma kala dhex gasheen oo waan iyo ma ka dhex balowdeen iyo in colaadan la joojiyo waaw deegaanagu intaas markaan maqalnay oo ku baxnay waxaan ku talagalnay arrintaas dee wixii dhacay wax kale inaysan ka daba dhicin dadkii baan xakamaynay ummadiina dee way soo barakacday xilli kulana waa lagu jiraa intaasoo dhan waxaa ku guulaystay maamulka galmudug gacantana ku haya kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug cismaan ciise taardhuleed oo u waramayay wariyahayaga cabdinuur sheekh maxamed xagga